جمال waxaa qarax uu ka dhacay derbiga xarunta dawladda hoose maamulka gobolka Banaadir meel ka soo horjeeda oo ah meel xiran oo laba bir dhaxdooda aad loo ilaaliyo isla markaana goobo ganacsi iyo ku yaalaan shaqaalaha dawladda hoose iyo dadweynaha suuqa Xamarweyne aad u isticmaalaan oo maqaayado ku yaalaan waxaa qaraxa qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa isku qarsay waxaana la sheegay in marka uu goobta soo gaaray uu qarxa kadibna khasaarada meesha dhaawac ka dhashay qaraxaas goobta qaraxu ka dhacana waa derbiga aqalka dawladda hoose ee Xamar ee maamulka gobolka Banaadir dhabarkiisa dambe ee degmada Xamarweyne waayahay khasaaraha ka dhashay marka intee buu gaarsiisan yahay dhimashada iyo dhaawaca haddii aad ogtahay booliska Soomaaliyeed goorda weyn wuxuu xaqiijiyay Jamaal in dhimashadu ay tahay 3 ruux dhaawacna uu yahay laba qof sida uu sheegay hafayeenka booliska Soomaaliya waxaa dadka goobjoogayaasha iyo goobaha ganacsi ee qarxu uu saameeyay qaarkood ay sheegeen in dhaawac ku dhawaad ilaa iyo 5 qof uu gaaray oo goobta laga qaaday dhimashaduna ay tahay ilaa iyo 4 qof sida ila kala duwan noo xaqiijiyeen laakiin hay'adaha amniga gaar ahaan booliska Soomaaliyeed goorda wuxuu sheegay in khasaaraha dhimashadu yahay 3 qof oo dhimasho iyo 2 dhaawac wali goobtu way xiran tahay ciidamada amniga ayaa gacanta ku haya oo wali baaritaano sameynaya saxaafadana waxaan joognaa meel meeshaan ka fogeyn oo aan hadda ku sugannahay walina in goobta iyo dadkana la hadalnahay ma suuragelin muuqaal laga duuba laakiin afayeenka booliska Soomaaliyeed wuxuu sheegay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca 3 dhimasho iyo 2 dhaawac inkastoo wali tafaasiil badan aysan dawladdu ka bixin arrinta la xiriirta khasaaraha cabdiqaadir hadda ka hor meeshaasi aan ka fogeyn ayaa qarax ka dhacay markii gobolka Banaadir ay galayeen kooxda al-shabaab marka meesha hadda uu ka dhacay intee buu u jiraa meeshii markii hore qarax uu ka dhacay ee qofka isoo miidaamay isku qarxiyey ee la sheegay in kooxdana ay ka gashay markii ay galayeen xarunta gobolka Banaadir waa isla goobta marka si loo fiiriyo wado dhabarka dambe ka marta xarunta dawladda hoose oo labada jilboonti ee maamulka gobolka maamulo ay ku qoran yihiin dhaxdiisa isla jihadii markii hore wax ka dhaceen ayay haddana ka dhacday marka la fiiriyo waana meel aad loo fadhiisto oo maqaayado harqaamo maaragtay xarumo ganacsi carwooyin iyo meelo kafee laga cabo ay ku yaalaan aad u mashquul badan waxaa la sheegay in dad badan ay halkan joogaan laakiin ciidamada ammaanku xog la hayay oo qofka si loo daba joogo hor intuu sa karsan sidaasna uu ku qarxay waxaa dadku ay sheegeen in la kala orday oo baqdin ay jirtay koorqarxa intuu saddex si dadka qaarkood ay sheegeen laakiin markaad fiiriso meesha wax ka dhaceen waa isla areadii markii hore wax ka dhaceen maamulka Banaadirka waarsala lagu soo qaadayay ciidamada ammaanka ayaa weli gacanta ku haya tafaasiishu ama xogtu way adag tahay in la helo welina waxaa socda baaritaanada hordhaca marka dawladda Soomaaliya gaar ahaan marka laga reebo qoraal kooban afeemku soo dhigana weli tafaasiil buuxda ilaa hadda lagama bixin marka ma bartilmaameedku wuxuu ahaa derbiga xarunta gobolka Banaadir mise dad meesha ku sugan ayuu qofku ku qarxay mise sidaad sheegayso in dadku ay kala carareen oo baqdintii ka dhalatay ayaa sababtay in qofka uu qarxo ka hor inta aanu gaarin meesha uu u socday ma sidaas baa haddii aad xogaha aad helayso aada noo sheegto inkastoo saraakiisha ammaanka aysan ka hadlin qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa inuu ahaa oo la xaqiijiyey oo jirkiisa qaybo kamida goobta ay yaalaan halka bartilmaameedku ahaa Jamaal weli ma cadda ma in uu u socdo aqalka dawladda hoose derbigiisa qarxu ka dhacay suuqa weyn ee degmada Xamarweyne suuq aad u mashquul badan ah goobahan ganacsi meherado waaweyn ku yaal marka meel hadda loo yahay oo bartilmaameed ah oo hay'adaha ammaanku ay sheegeen ilaa hadda ma jirto laakiin waxa la xaqiijiyay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxu ahaa qarxuna halkaas uu ka dhacay meesha qarxu ka dhacana dabcan waa meel mashquul badan oo goobo ganacsi ku yaalaan oo derbiga dambe maamul gobolka Banaadir ah waa meel laga shaaho laga qaxweeyo marka tafaasiil goobta targetka iyo halka uu ahaa ilaa hadda wax xaqiijin kara ma sheegi kara ma jiraan